ma aha kaliya tuulooyinka yaryar waxa bilaa wadada balse waxa la qaba degmooyinka waaweyn halkani waa degmada Godoweyn oo waayii hore ahaan jirtay xarun ganacsi waxaana mari jirtay wado weyn ka hor inta aan la marin wadada marta Berbera iyo Sheekh balse imika waxa haysata dib dhanka wadada ah magacaygu Cabdulaahi Cabdi Cali guddoomiyihii degmada Godoweyn waxa labada waa ka fiicantay waxbarashada iyo caafimaadkaba inta awood degmo ay leedahay ahaanta way ka fiican tahay caqabada ugu weyn ee degmada haysa waa laba qodob horta ay weeyaan waa biyo la'aan iyo wada la'aan iyo biyo la'aan labada baahiyood ugu weyn biyo la'aan sanad walba jirta ويوم حالة جودة كمان كلها أنا وثمر والبصل والب تاجبه ومرة داري فينا لهين بابو وين أنا لهين وكذا بيلات وين تشوكتا مركا جودوين ودمو كوفر قلبي حتى جوبا كساحل بيع والبا وين نجي هاي سواد حمده دائما كفتلاش شيخ أبو وبور يملح يضوح هذا استراده معاه هذا ساحل بالبرغبة وحقا كذا على وكسر درت هاي مركا عقبة داشت حمده هو تلوين مكان عول بق معاه هذا كتاجن runtii anaga sida gudoomiyu sheegay waxyaabaha halbowlaha ah ama laf dhabartahay waxa weeye biyo la'aan iyo wada la'aan biyo la'aanta maruba laga bixin insha Allah ama raxmaadkiisa Ilaahay noogu roonaan ama deewala dadaalino oo ka bixin laakiin tan kaliya halbowlihi waxa weeye ee dhaqaalihii ku xidhan ee mid caafimaad ku xidhan ee mid waxbarasho ku xidhan ee mid environment kale ku xidhan waxa weeye wadada waa wada la'aantii waa hunguri cadkii wadooyinku hadii ay gadoon aad ka noqoto marka runtii degmadan iyo dhammaan tuulooyinka hoos yimaada waxay gadoon ka yihiin wadooyinka waxaan anagu isku tashanay hadii aanu deegaan ahaan nahay oo aan iswargelinay in aanu ka qayb qaadano hadii xoog tahay qofkii xoog kaga qayb qaadan karaya kii dhaqaale kaga qayb qaadan karaya inaanu ka qayb qaadano ayaan isku wargelinay ولا deegaanka tuulada isku tar odaga waxa la yafaar xaashi abdi cilmi waana beerayda ila gobolka saaxil degmada Sheekh furada isku dar marka sharcu soo go'o talagu soo go'o caqabada ugu weyn horta waxa weeye waa wada la'aan marka goboladii geyn lahayn bilaa Hargeysa oo kale burco kale wadada wax xanibaad marka daad yimaado mar walba wadi qeyr weeyaan mar walba waa go'an halkaas ku xanibnaan moogta marka waxaan u baahanay baahi weyn u qabnaa waa wadada qurba joog iyo dad ka damqaday dadkii iyo deegaankii qaranku ku badbaaday waayadii hore ayaa sameeyay urur lagu magac daray gacan libaax organization community kaasoo bilaabay inuu wado u sameeyo deegaanadaasi hadda waxaan u jihaysanahay deegaanka ila carmo oo ay geeyeen qalabkii ugu horeeyay ee wadada lagu bilaabi lahaa
halkani waa deegaanka Ilcalmo oo ka tirsan degmada Mandheera oo hoos timaada gobolka Saaxil sida wada arkaysaan waxa ka socota hawl ballaaran waxaana la qodayaa balli waxaana bilaabay ururka Gacan Libaax Organisation Community oo ah urur iska wax u qabso ku bilaabay mashaariicda ka socota deegaanadani marka la dhameeyo balligani waxa iyadana si toos ah loo bilaabi doonaa wadada Jarato ee isku xidha Berbera Godaweyn Godayar Girni Sheekh aniga magacayga waxa la yiraahdaa Maxamed Salebaan Cali waxaan ahay ninkii cagaftan waday dhaamka qodaysa deegaankan aynu ku sugannahayna waxa weeyaan deegaanka Ilcalmo oo ka tirsan degmada Mandheera gobolka Saaxil hawshan halkan ka wadnaa hadeer waa dhaamkan ayaan markaa shaqadan bilownay waa aragtaan halku marayo waa 100 mitir area square wadada ayaa iyadana dhinac marta dhirta imka inoo muuqanaysa wadadii Jarato oo iyadana gaadiidkan loo keenay ayaa marta wadadaasi waxay wado muddo dheer xiran lagama daadegin ilaa iyo waqtigii maxay talay ka dambeysay wadankan qabsanay ilaa 1990kii ugu dambeysay gaari mara haddii uu marana gaari linka ruusa loo deekaa qofku mara ayaa mara wax kale oo ka daadega ma jiraan waana wadadii deegaankan ma garanaysaa waxtarka weyn u lahayd gaar ahaan deegaankan maxay talay ilaa Goo ilaa maxay talay dari mara maxay meesha kale la yiraahdo iyo fadhiisinka dhagacade wadadu deegaanka u dhaxeeya Godaweyn iyo ilaa iyo Sheekh way gashaa farhaaraha bixiso dhinacyada kala leexleexato hadaynu burcadona waa ka galeynaa hadaynu Gacan Libaax iyo dalxiiska u baahno waa laga galaa haddii isku dar loo baahdo tanaa gasha haddii maxay tolo goyar loo baahdo tan baa gasha ya haddii loo baahdo maxay tolo daldawan iyo ma garanaysaa inta ood weyn ka soo sareysa deeyadun baa gasho wada waa marka maan dhulkaas oo dhalinyartiisa badan wax niban yahay iyagana gaadiidkan waa la keenay wax loogu talagalay wadadan inay furaan deegaanka kale wadada loo soo iibiyay dadka deegaankana waxaan ka codsanaynaa inay cagafyada iyo ma garanaysaa ay qaabilaan markay soo gaadho deegaanka wax badan bay u qaban doontaa wadada way u furi doontaa barkaday ku qodan doonaan dhaaman baa loogu qodi doonaa waxaan u sheegaynaa deegaankuna inay iyagu gaadiidka leeyihiin gudahiyo dibadba inay ma garanaysaa wixii faranteere ma garanaysaa la gelinayo bahalaha inay ka qayb qaataan taa deegaankaanu ma garanaysaa ugu baaqaynaa ta kalena wixii ma garanaysaa dowladana wixii deegaanku xaq ugu lahaa inay ma garanaysaa ay ka helaan oo iyaguna ay ka doontaan oo cagahooda inta ku socdaan ay ka doontaan dowladana waxaan ka codsanaynaa inay hawsha waxay nagala qaadanayso inay fududiso maxay tolo ee wadada ma garanaysaa ku saabsan halkan aan taaganahay waxa iga dambaysa imika mid ka mid ah cagafyada dadka qurbajoogta ee ka soo jeeda deegaankani ay ugu tala galeen inay kaga shaqeeyaan wadada sidoo kalena ay ugu qodaan baliyo Ilcalmo Godaweyn Godayar Girni iyo dhammaan deegaanada hoos yimaada cagaftan iga dambaysa waa tii wadada waana tii dhulka iyo dhagaxaanta jabinaysay waxaana ku jira dumbihii lagu tala galay in dhagaxaanta lagu jabiyo walkan waxa weeyaan deegaanka Ilcalmo oo hoos taga magaalada Berbera anigu waxaan ahay heerkii magaalada anigu waxaan ka soo jeedaa beesha ugu xildhibaanada badan leh 12 xildhibaan baan soo saarnay haddana wadadeedii weli xildhibaano iyo mashaariic mid sameeyeen waxaan leenahay wadada nala bilaabo nala furo nala shaqeeyo inta waxa noo dheer dhaamku waa ka waxa loo baahan yahay rabarkii in loo hawl galo iyo gurigii taangigii iyo qasabadihii wadada reer male waa wadada Soomaaliland oo dhamilada marka ilaa dawladda shacbiga inuu hawl galo halkani waa dawga Jarato dadka deegaankani waxay ka door bideen inay maraan wadadan dhow 75 kiiloomitir oo soo wareega 15 kiiloomitir waxa halka ay naga beegan magaalada Abdaal
rafka iyo dhibaatada ka jirta dowgani jarato waa mid aad u dhib badan dadka deegaankana waxay kala kulmaan dhibaatooyin dhanka gaadiidka waxaana godoonsan dhammaan deegaanada dhankan kaga beegan gobolka saaxil dadka deegaanadani waxay dirayaan baaq bulsho iyo mid dawladeed si ay u helaan wado maamulka dawladda hoose degmada Berbera waxay ballan qaadeen 100,000 oo dollar oo ay ku dareen miisaaniyadii 2022 balse wadadii bilowgii waxay u xaniman tahay lacagtaasi ay ku deeqeen maamulka dawladda hoose degmada Berbera maraanu isku daynay inaan wax ka weydiino arintaasi wax jawaab ah kama aanu helin daawadayaal barnaamijkan waxa idin socodsiinayay anigoo ah Maxamed Wardi iyo muuqaalada quruxda badan oo uu duubay Mubaarak Mario. Audio Jungle.